xaaskiisii ayuu ka tegay iyada oo xaamilo ah, balse waxaa loo sheegay markii uu soo laabtay in ay dhimatay oo la aasay iyadoo cunugii caloosha ku jirana uu nool yahay. waa qiso la yaab leh, waxayna dhacday xilligii uu Cumar bin Khadaab talada muslimiinta hayay. maalin maalmaha ka mid a, Cumar bin Khadaab oo fadhiya ayaa waxaa u yimid nin iyo wiil yar oo wada socda. Cumar markii uu arkay ninkii iyo wiilkii oo wada socda ayuu aad u fiiriyey, wuxuuna la yaabay sida ay isugu eg yihiin. markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii, waxaan la yaabay sida uu cunugaaga kugu eg yahay, waxaad mooddaa sida dukaha uu dukaha kale u shabaho oo kale. ninkii ayaa hadlay oo wuxuu Cumar ku yidhi, waxaa taasi ka yaab badan, cunugani wuxuu dhashay markii hooyadii dhimatay kadib. Cumar ayaa hadalkii aad ula yaabay, meeshii uu fadhiyey ayuu ka soo jeestay. markaas ayuu ninkii wuxuu ku yidhi, bal ii sheeg sida ay qisadani ku dhacday. ninkii ayaa wuxuu yidhi, maalin ayaan waxaan go'aansaday in aan aado safar, waxaana u sheegay xaaskayga oon ku idhi waxaan doonayaa inaan aado safar, balse xaaskayga kuma aysan qancinin in aan aado safar. markii aan isu soo diyaariyay safarkii ayay waxay ii istaagtay albaabka, waxayna igu tiri, ma baxaysid. waxaan ku idhi, maxaa dhacay? waxay igu tiri, yaad uga tegaysaa cunugan caloosheeda ku jiro. markaa waxaan ku dhahay, alle ayaan u wadeeca dhigay oon u tala saartay, sidaa ayayna igu fasaxday, waxaana aaday safarkaygii. muddo dheer kadib waxaan ka soo noqday safarkaygii, waxaana ku soo laabtay magaaladii. markii aan gurigii ku soo dhowahay ayaan waxaan arkay albaabkii oo xiran, waxaana igu soo kala cararay ilmihii uu dhalay adeerkayga. waxaan weydiiyey xaaskaygii oon ku idhi, xaggey aaday? waxay igu dhaheen, way dhimatay. waxaan dareemay murugo iyo naxdin, waxaana dhahay, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. kadib waxay ii keeneen casho. anigoo cashadii kor fadhiyo ayaan waxaan arkay qaac ka soo baxaya qubuuraha dhexdooda. waxaan ku idhi, muxuu yahay qaacan? waxay igu yidhaahdeen, wuxuu ka soo baxaa qabriga xaaskaaga laga soo bilaabo maalinkii aan asnay ilaa iyo maanta. wuxuu yidhi ninkii, xaaskayga aniga ayaa ka warqaba xaaladdeeda, waxayna ahayd qof dhowrsan oo maalintiina soonta, habeenkiina salaad iyo cibaado u taagan. waxaana aaminsanahay inay tahay qof wanaagsan, waxaana rajeynaya inuusan allah hoojin doonin. wuxuu aaday halkii ay ku aaseen, waxaana raacay carruurtii uu dhalay adeerkii. markii uu tegay qabrigii dushiisii ayuu wuxuu go'aansaday in uu faago. markii uu daboolka ka qaaday ayuu wuxuu arkay xaaskiisii oo meyd ah oo meesha taallo, iyo cunugii yaraa oo nool oo ku hoos jiro labada ligood dhexdood. markaas ayuu wuxuu maqlay ruux u naadinaya oo dhahaya, wadeecadii aad nooga tagtay waan kuwa xafidnay ee qaado. sidaa ayuuna cunugii ku soo kaxaystay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka Maalmaha, fadlan sabskaraab dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub oo aan soo dhigi doono. mahadsanid.